kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa janaalkeena udub Soomaali TV qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona haddii Rabbi qadaro Cabdiraxmaan Ciro oo heshiis la yaab ah la galay maamulka Imaaraadka Carabtu muxuu yahay heshiiskaasi iyo sidoo kale wararkeena waxaa qayb ka noqon doona Saciid Dani oo markan amar siiyay ciidamada maamulka Puntland maxay tahay amarkaasi halkeesa weerar ku qaadi doonaan waxaa kale oo warkeena ku soo qaadan doonaa Somaliland oo saddex daran midkood hadda dooran doonto maadaama dagaal saddex geesood ah uu hadda ku furan yahay wararkeena waxaa kale oo qayb ka noqon doona xiisada siyaasadeed ee Jubbaland iyo sidoo kale dagaalada ka dhanka maleeshiyada Al-Shabaab wararkaasi warar kale oo xiiso badan ayaan soo qaadan doonaa daawade haddii aad janaalkeena udub Soomaali TV aad ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka like share comment waa dhakiina aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya ee warkeena madaxweynaha maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Ciro ayaa mar kale waxa la sheegayaa in heshiis hoosaad uu la galayo dowladda Imaaraadka Carabtu waxaana Cabdiraxmaan Ciro oo hadda uu rajo wanaagsan uu ka leeyahay in aqoonsi ay hesho maamulka Somaliland saacadihii ugu dambeeyay Cabdiraxmaan Ciro ayaa kulamo kala duwan la qaadanayay qaar ka mid ah saraakiil Imaaraad waxaana bilihii la soo dhaafay Cabdiraxmaan Ciro la sheegay inuu kulamo isdaba joog ah uu la qaatay madaxda wadanka Imaaraadka Carabtu isagoona kala hadlay yoolkiisa ku aadan isbeddelka siyaasadeed ee maamulka Somaliland sidii aqoonsi ay ku heli lahaayeen inkastoo Cabdiraxmaan Ciro xukuumaddiisa lagu eedeynayo in dad badan oo saxafiyiin ay u badan yihiin xabsiga ay dhigtay 31 saxafi ayaa xabsiga la dhigay tan iyo markii la doortay Cabdiraxmaan Ciro oo ah shakhsi aan adkaysi lahayn isla markaana maamulkiisa kaliya yoolkiisu uu yahay sidii uu caburi lahaa dadka sidoo kale waxaa la sheegay in maamulka Somaliland hadda saacadihii ugu dambeeyay ee xabsiga ay dhigeen mid ka mid ah saxafiyiinta ka howlgala deegaanada maamulkaasi ayaa gebi ahaanba isaga cararay kadib markii culays xoogan ay kala kulmeen madaxweynaha maamulkaasi Cabdiraxmaan Ciro wararka sidoo kale waxa ay sheegayaan in Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ciro saacadihii la soo dhaafay uu amar uu siiyay saraakiisha ciidanka maamulka Somaliland inay tallaabo adag ay ka qaadaan cid kasta oo gobolada waqooyi ka soo jeeda isla markaana xabsiga la dhigayo tanna waxay u muuqanaysaa in Cabdiraxmaan Ciro uu culays xoogan uu saarayo dadka dowladda Imaaraadka Carabtuna waxay u soo ballan qaaday lacag balaayiin ah inay siin doonto si uu ugu wareejiyo deegaano muhiim u ah maamulka Imaaraadka Carabta dowladda Imaaraadka Carabtu ayaa maalgashiyo waaweyn dekada Berbera rabtay inay ku samaysato isla markaana DP World ay ka shaqeyso meelo muhiim ah Cabdiraxmaan Ciro ayaa dhaqaale fara badan dowladda Imaaraadka Carabtu u ballan qaaday lacagaha ay u ballan qaaday sidoo kale waxaa la sheegay inay noqon doonaan kuwo joogto ah isla markaana mushaaraadka ciidanka Somaliland ay bixin doonto dowladda Imaaraadka Carabta sidoo kale yoolkeeda ugu weyn waxa uu yahay in Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Ciro ay kulansiiso ay wada hadalsiiso isla markaana Somaliland go'aankeedii hore ee jamhuuriyadda ahaa inay ka laabato tanna waxay u muuqanaysaa in culays siyaasadeed cusub oo ka bilaabanayo deegaanada maamulka Somaliland haddii Cabdiraxmaan Ciro uu ogolaadana go'aanka dowladda Imaaraadka Carabtu mar kale waxay u muuqanaysaa sheekadu in culays siyaasadeed cusub uu dhaxda ka geli doono maamulka Somaliland dhinaca kale isla Somaliland arrimahooda ayaan ku guda jirnaa maamulka Somaliland ayaa dagaal saddex jihood ah hadda uu ku furan yahay jiho waxa uu kaga furan yahay maamulka waqooyi bari Soomaaliya oo isku hayaan dhul balaarsi jiho kalena jabhadda Odol State oo Djibouti garab ka helayso sidoo kale dowlad deegaanka Soomaalida oo Xasan Ciraaqi xarigiisa ka xun ayaa waxay rabtaa inay duulaan ay ku soo qaado maamulka Somaliland madaxda maamulka Somaliland ayaa la yaaban culeysyadan cusub ee hadda dhaxda ay kaga jiraan Somaliland oo iska ahaan jirtay meel nabadoon ayaa hadda isku bedeshay furun dagaal waxaana la sheegay in dagaal saddex geesood ah uu hadda ku furan yahay dagaalka saddex geesoodka ah ayaa waxa ugu xun kan uga imaanaya maamulka waqooyi bari Soomaaliya maadaama maamulka Somaliland yoolkooda ugu weyn uu yahay in ay talaabooyin adag ay qaadaan talaabooyinkaasina waxa uu noqonayaa mid ay isbedel ay ku doonayaan isbedelkaasi oo ah mid rajo wanaagsan ay ka qabaan in xaalad kasta oo jirto xalkeeda la helo culeyskuna uu ka dego maamulka Somaliland haddii maamulka Somaliland dagaalkaas saddex geesoodka ah ay galaan waxay ku noqon doontaa culeyska kii ugu darnaa oo maamulkan uu dhaxda uu ka galo ciidamada maamulka Somaliland ayaa yoolkooda kaliya waxa uu yahay in gobolada
sool iyo cayn gacantooda uu soo galo islamarkaana ay ilaa iyo tukaraq ay gacanta ay ku dhigaan. tanna waxay ka dhigan tahay in madaxweynaha maamulka Somaliland istaraatiijiyad cusub uu u degdejinayo dagaalada. kulamo ayuu la qaatay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada maamulka Somaliland. sidoo kale jabhadda Awdal State ayaa iyadana waxay rabtaa inay goosato gibi ahaanba gobolka Awdal islamarkaana ay ka madax banaanaato Somaliland oo Djibouti iyo dhinacyadaas ay ku biirto. tanna waxay u muuqanaysaa in Somaliland ay niyad kale ay ku noqonayso. jabhaddaana hub aad u fara badan wadato ayaa hore waxay u sheegtay in ciidanka Somaliland gibi ahaanba inay u ogolaanaynin in deegaanadooda ay soo galaan kana amar qaadan Cabdiraxmaan Ciro, maadaama jabhaddaasi ay sheegeen in xaqooda la duudsaday. Somaliland wixii ay ku lahaayeen ay ka waayeen, wax xiriir ahna uusan ka dhicin. taasna waxay u muuqanaysaa in Somaliland culays kale ay ku noqonayso. tan saddexaad, beesha ogaadeen ayaa waxay wadaa inay xoog ay ku soo furato Xasan Ciraaqi islamarkaana ay keento deegaanadeeda. sidoo kale wararku waxay sheegayaan in ciidamada dowladda ka tirsan ay tageen dowlad deegaanka si ay qayb kaga noqdaan dagaalka lagu qaadayo maamulka Somaliland. jahawareer cusub ayaa haysta Somaliland, wixii ku soo kordhana waan idiin soo gudbin doonaa. dhanka kale, Siciid Cabdullaahi Dani waxa uu amar uu siiyey ciidamadiisa, isagoona ku amray ciidamadiisu in ay weeraraan Sanaag islamarkaana ay ka saaraan ciidamo kasta oo taageersan maamulka waqooyi bari Soomaaliya. inkastoo beesha Warsangeli ay hore u sheegtay inay ku biirtay maamulka Puntland, haddana gobolka Sanaag waxaa ku sugan ciidamo aad u fara badan oo ka amar qaatay Cabdiqaadir Axmed oo Cali Firdhiye. Siciid Danina waxa uu sheegay in ciidamadiisu ay tallaabo adag ay qaadaan, ayna weeraraan, ayna ka saaraan Sanaag ciidamada taabacsan Cabdiqaadir Axmed oo Cali Firdhiye. Cabdiqaadir Axmed oo Cali Firdhiye yoolkiisa ugu weyn waxa uu yahay in goboladiisa uu ceshto, beesha dhulbahantii beesha Warsangeli isfahansiiyo, wax waliba oo tabashooyin ah u jirana wada hadal lagu dhameeyo. dhinaca kalena daawadayaal, gobolada dalka gibi ahaanba wali waxaa ka soconaya kacdoonada ka dhanka maleeshiyada qawaariigta Al-Shabaab. wararka ugu dambeeya aan helnay waxay sheegayaan in maleeshiyada culayskii ugu xooganaa hadda uu soo koray. saacadihii ugu dambeeyay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay wadaan abaabul dagaal oo ka dhan ah kooxda qawaariigta Al-Shabaab. kooxda Al-Shabaab ayaa saacadihii la soo dhaafay waxaa la tilmaamay in culays xoogan ay kala kulmaysay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka ee xaq u dirirka ayaa yoolkooda ugu weyn waxa uu yahay in ay tallaabooyin adag ay sameeyaan. tallaabooyinkaasna waxay ka dhigan yihiin isbedelo kale oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee gobolada Shabeellada Dhexe iyo sidoo kale gobolada kale ee dalka ay doonayaan in ay ka sameeyaan. saacadihii la soo dhaafayna waxa ay dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay in saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay laba jibaaraan dagaalada iyo sidoo kale duqeymaha joogtada ah ee lagu hayo kooxda argagixisada Al-Shabaab. guudaan daawadayaal, warkii oo aad ka daawanayseen janaalkeena Udub Somali TV saaxiibayaal waa naga intaa. daawada haddii aad janaalkeena ku cusub tahay, subscribe noo saar janaalka, like iyo share iyo comment waa dhankiina. waa mahadsantihiin, nabadgelyo.